السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا بيجكيغا عدنان اسماعيل حرسي شير لايك كومنت إن شاء الله maanta mowduucan ka hadlayaa oo mowduuc bani aadam kasta oo Soomaaliya adduunka ku nool waxaa la yiraahdaa uu isweydiiyo طبعا qofka damiirka leh baa isweydiiya qofka aan damiirka leh su'aalahaas oo kale abadan ma isweydiiyo walaa waabay ag timaadaaba su-aasha insha allah aan jecelahay maanta inaan nila wadaago waxa weeyaan haddaa adigu Soomaali tahay anaa Soomaali ahay waa niyow waxaa inaga qaldan su-aasha kale isweydiin lahaa niyow Soomaali haddaa tahay waxaa rabtaa bani aadamka waxyaabaha jira qancisa number 1 waxaa qanciya karaamadiisa qof kastaba karaamad buu leeyahay dowladdaada karaamad ma ku leedahay oo karaamad ma ku yeeli kartaa waayo karaamad waxay ka mid tahay markaa qurbo qabatid markaa meel dhooftid dowlad kugu garab istaagan oo wixii kaa soo saaraysa dhibaato kaa soo saaraysa hadday dhibaato ku dhacdo waxaa la yidhaahaa safaarado adag joogaan waxaa la yidhaahaa ku difaacaya oo kusoo garab qabanaya haddaa lacag la-aan ku qabato dowladda iyadoo lafteeda kusoo badbaadinayso waddankaaga kusoo celinayso markaa shaqo raadinaysid marka waxaa raadinaysid waxaa la yidhaahaa aqoontaada iyo cilmigaaga ma la ixtiraamaa waa nooc min anwaac karaamada bani aadamka ay ku jirto xorriyad ma u leedahay waddankaaga inaad dhaleecaysid haddaad dhaleecaysidna ciidan iyo boolis ma lagu soo adeegsanayaa mise waa dowladda waxaa la yidhaahaa karaamadaada ilaalinayso hadalka aad tiraahid ka soo qaadaysa hadal wax saxaya waxoo kale muhiimka ah waxa weeye waa caafimaadkayga waxa weeyaan adduunka wuxuu horumar ku gaaray ama dadku ku gaareen waa caafimaad qofka haddaanu caafimaad haysan ma shaqo ka tegi karo dad carruurtiisa ma biili karo kirada ma iska bixin karo kahrabo ma iska bixin karo noloshiisa iyo nolosha carruurtiisa ma ka adka marka ninkan anigu aan doonayaa intaa caafimaadkayga ma ilaalin karaa aniga waxaan doonayaa iskuul anigoo da-weyn xataa hadday noqoto waxaan doonayaa dowlad haddaan shaqadayda aan matalan aan waayo inaan shaqo kale aan baran karo matalan iminka anigu waxaan ka shaqeeyaa IT shaqadii IT-gu ma jirto waa la waayey dowladdu haddaba ma iga bixinaysaa koorsadaha aan iskaga bixinayo waxaa la yidhaahaa lacagaha iskaga bixinayo koorsadaas oo ma igu caawin kartaa dee suuqii shaqada waxay u baahnayd dowladdu shaqooyinka ma i baraysaa carruurtayda ma kafaalo qaadaysaa class 1 ilaa iyo intay jaamacad gaarayaan inaad jaamacado wanaagsan la helo ma la helayaa dariiqadii amba systemkii aan ku tegi lahaa shaqadayda jid wanaagsan jid markaan socdo aanan dhibaato aan la kulmeyn hog aanan la kulmeyn shaarac jaban aan la kulmeyn meel aan ku tegi karo 20 minutes inay iga qaato 1 hour amba 2 hour ma la heli karaa berito hore haddaan da-weyn aan noqdo oo waxaa la yidhaahaa aan 60 gaaro aan xanuunsado aanan shaqo tegi karin dowlad ma haystaa nolol wanaagsan siinaysaa oo guriga kirada iga bixinaysaa oo waxayga caafimaadka iga bixinaysaa oo waxaa la yidhaahaa haddaanan xaas iyo carruur ii joogin dad ilaaliya oo iga mas-uul noqda oo noloshayda iyo caafimaadka ka mas-uul noqda ma ilii keeni karaa waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan inaan qofku isweydiiyo ayaa mudan aniga maanta hadduu madaxweyne ii fadhiisto meel aan waxaasoo dhan ii qabanayn waxaan ka faa'iiday hadduu magacaygii Soomaali ahaan meel kasta bay leeyahay akhas caleek amba meel aan haddaan tago laga soo qaadayo waxba aana jirin waxyaabahan amba madaxweynayaashan badan ee Soomaaliya jooga waxay soo kordhiyeen waa inaa isweydiisaa waxaa dantaada ah qabiil meenina gaarsiin maayo nin sawirkiisa inta soo qaato aan iraha FIFA isagoo waxba ay ii tireen waxna soo kordhin mayso nin intaan u heeliyo oo shaqo yar uu qabtay aan ka dhigo inuu hero u yahay dhibaatadeeda leedahay Soomaaliya maanta 30 sanadood bay lunsanay waxaa lumiyey dictator baa jiray dictatorkii waa dhacay waxaa ka dambeeyey boqolaal dictatoration baa inoo soo baxay
qabiilo dictatornimo ay ku jirta baa inoo soo baxay. Waddankeeni wuxuu noqday in ay dad kale ku shaqaystaan ay ka faa'iidaan. Ethiopia shalay markay ahayd Soomaaliya dowlad wanaagsan oo dowladaha qaniga ah, Ethiopia waxay dowladaha ugu faqiirsan bay ahayd. Shalay Kenya dowlad faqiira bay ahayd markay ahayd Soomaaliya Tiger of Africa. Sababtoo ah anigu waxaan soo gaaray Soomaaliya is jecel, Soomaaliya oo qabyaalad aanay dhex oolin, Soomaali oo meel kastaba isa soo arursanaysa. Soomaali baa berigaas jecleyd ee dowlad may ahayn. Soomaali qabyaalad may dhex oolin. Soomaaligu Soomaali buu ahaa. Marxaladda aan joognay maanta dictatorship waan ka takhalusnay. Sababteena cabsiisay oo adduunka ugu harnay inaan isweydiino baa loo baahan yahay. Adiga Soomaaligaaga ay arkaya. Ma ogoshahay xaalka maanta adigu waa ku nooshahay? Ma ogoshahay carruurtaada yaryar ee farxadoodii aanay dhammayn? Ma ogoshahay maanta inay agoonno badan ay Soomaalida ay jiraan oo hay-ad amba cid u gurmata aanay haysan? Haddaa Soomaali tahay ma ogoshahay hadduu roob yar soo da'o in uu guryo baabi'iyo, uu jidad tirtiro oo dad badan ay ku dhintaan, ay waayaan dowlad amba cid mas'uul ah oo u soo halgankata oo tiraaha waxba iska beddelaya? Ma is weydiisay carruurtaydii jaamacadda markay ka soo baxeen waxay uga cararayaan waddankii? Dabcan waan ognahay xaqiiqdu waxay tahay, waanan ognahay waxa xagayna dhigay, waanan ognahay waxa adduunka ugu dambayno, laakiin indhahana waan iska tirnaa, horeyna ha loo socdon baan raacnaa. Horeyna markaan u socono kolba hog baan ku dhacnaa. Horey haddaa u soconaysid waa inaa wixii aad ku soconaysid laguu keenaa. Laakiin nin dhan intuu iska fadhiisto kursigii inuu ku yiraaho madaxweynaan ku ahay, inuu ku yiraaho waxaa la yidhaahaa barasaab baan ku ahay, inuu ku yiraaho suldaan baan ku ahay, inuu ku yiraaho ugaas baan ku ahay, inuu ku yiraaho waxaasoo dhan isagoo aana waxna kuu hayn, adiguna sida xoolaha aad iska daba socotid.